الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. sida uu sheegay agaasimaha cusbitaalka runtii gudoomiyaha gobolka qayb weyn buu ka qaatay cusbitaalkani in uu howlgalo ayadoo awal dhibaato weyn naga haysatay. imaatinkii uu yimid ayaa markuu arkay baahida meesha jirta ayuu abaabul asiga sameeyay oo sixilqaamay. abaabulkaasna waxay dhashay natiijo aad u wanaagsan oo maanta laga faa'iiday oo qaliimo lagu sameeyey waa saalada qaliinka. dadkii bira lugaha ka jijabay ama gacanaha oo biraha ku jira oo birihii laga saaray oo meeshii oo howl gashay ayadoo qalabkaasna ay keeneen guddiga bangiyada ay inoo keeneen. aad baan ugu mahadcelinaynaa. waxaan leenahay ciidankiina aad wax u qabateen. ciidankuna waa kan habeeni maalin dhiiggiis u daadinayo dalka, waa kan mataqaanaa u soo jeedo. laazim uu u baahan yahay dadkiisa inuu ka helo garab, inuu ka helo dhiirigelin, inuu ka helo. intaana maanta anugu wax weyn bayna taraysaa askari kastoo Soomaaliyeed haddii meeshan uu soo wax soo gaaro la keeno oo sidaas mataqaanaa lagu daweeyo farxaddu meesha kaga baxayaa. maaha marka mahadcelinta keligayga maaha, xataa kii lagu daweeyey kii arkay intaasaa idin mahadcelinayso. aad baan idinku mahadcelinaynaa boqolkiiba boqol. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.